بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. waxaan rabaa inaan maanta halkan kala hadlo madaxweyne xasan sheekh maxamuud. mudane madaxweyne anaga waxa waaye haddaan beesha mursanahay waxaad noo magacaawday wasiir iyo gudoomiye ku-xigeen beena oo artificial oo meel ay ka shaqeeyaan aysan jirin. waxaad ogtahay qabiilka beesha mursanada waxay ku jiraan dagaal ay ku jiraan deegaanadoodii aadeen waxa waaye maaragtay maalintii afraad dagaal socdo dadaa dhintay dadaa dhaawaca. waxaan ognahay wasiirku waxa uu wasiirku yahay waxa waaye in uu maaragtay xiriiriyo qabiilka iyo dawladda dhexe. waxa qabiilku u baahan yahay inuu dawladda u sheego wixii maaragtay dawladdu ay u baahan tahay inuu qabiilka maaragtay la socodsiiyo. shaqadaas wasiirku waa gabay wax warbixin oo laga hayo ma jirto. in muddo ahna waa dhaliilnay waa dhaliilsanayn waa ogtahay. waxaad kaloo ogtahay maaragtay in maanta oo maalintii afraad ah oo dagaalku uu ka socdo maaragtay gobolada beelweynta mursade in gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo wasiirkii beesha mursade matalay labaduba ay dalka maqan yihiin muddo 3 maalmood hadda dalka maqan yihiin. taasina waa eed kale oo qabato in qabiilkii dhamaayay oo dagaalamayo meesha la rabay ninkii dawladda ugu jira qabiilka ama raggii dawladda ugu jiray ee la rabay inay maaragtay taakuleentooda iyo isbarbar istaagooda iyo ka warqabkooda waxa ay u baahan yihiin inay ka shaqeeyaan aysan waddanka joogin. waa nasiib darro weyn waa nasiib darro weyn. waxaan ognahay dawladdu waxay ku dhisan tahay 4.5 qabiil kasto waxa laga keenaa wasiir laga keenaa. wasiirkaas marka koowaad wuxuu si toos ah u matalaa qabiilkaas uu ka yimid. markii uu qabiilkaas xiriirkiisa iyo dawladdu uu wanaajiyo ayuu noqdaa wasiir guud oo ummadda oo dhan maaragtay matala. laakiin haddii wasiirkii amba gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee aad dooratay labaduba aysan qabiilka war ka hayn macnaha yii matalan waddanka Itoobiya ayaa Tigreed waxay sameysay markii waddanka Itoobiya la wareegtay Oromia oo ah shacbiyada ugu badan ee dalka Itoobiya ku nool waxay u magacaawday waxa la yiraahdo madaxweynaha Itoobiya. madaxweynaha Itoobiya meel uu ka jiro iyo meel uu ka shaqeeyo iyo shaqo uu qabto midna ma jirto. marka beelweyn maaragtay Oromada waxa lagu qancin jiray markasta madaxweynaha haysatay. marka haddii adiga aad maaragtay madaxweynaha Itoobiya camal dad ay aad noo magacaawday taasi sax ma ahan. waxa waaye anagu waxaan u baahanahay dad na matala oo siyaasadeena si sax ah u matala haddii hale dawladda hoose iyo dawladda dhexe intaba waxa waaye wax badan la cawday waxaa nasiib darro ah in muddo 12 maalmood oo waddanka ay ka wada maqan yihiin gudoomiyihii iyo wasiirka qabiilku lahaa ee dawladda hoose iyo dawladda dhexe ku matala. deegaanada hadda loo socdo oo la xoreynayo oo cadawga laga dul qaadayo waxaa loo tagay dambar rasaa loo tagaa oo 15 sano cadawgu ku habsanayo. dadkaas waxay u baahan yihiin daawo u baahan yihiin waxay u baahan yihiin maaragtay cunni u baahan yihiin waxay u baahan yihiin hadda waqtigu maaragtay waqti roobada lagu jira bacay u baahan yihiin yaa way cidda waxaas oo dhan ka shaqeeyay gudoomiye ku-xigeenka gobolka waxay ahayd iyo wasiirku in hay'adaha maaragtay ummadda gargaara arrimaha maaragtay bini'aadanimada ka shaqeeya inay wargeliyaan oo yiraahdaan maaragtay waxaan u baahanahay kaalmo bini'aadanimo intaas la inay wax weydiistaan qabiilka naftigiisa inay u sheegaan meesha dawladdu maaragtay xaaladiisu ay marayso qabiilka inay la wadaagaan xaaladda dawladda meesha ay marayso. marka waxaan u baahanahay maaragtay in xaaladda qabiilka aad loola socdo qabiilku in muddo ahba waxay qabaan in maaragtay matalaad xumo maaragtay ay dawladda xasan sheekh qabiilku waxay aaminsan yihiin in muddo ah inaysan dawladda xasan sheekh wax matalaad ku haysan. marka dhanka kala fiirsan waa hybrid waxa way dawladda wasiiran ku leenahay gudoomiye ku-xigeenan ku leenahay waxaan ku leenahay maaragtay shaqaale kale oo fara badan ku leenahay haddana wixii wax maaragtay baahida dabooli kara ma dhibaato waxay ka timid qofkan aad qabiilka aad u dooratay ma ahan qof qabiilkii maaragtay taladiisii iyo fikirkiisii meel marsii kara ma taasoo wixii caqabad ku noqday maamulkaada caqabad ku noqday horumarka dalka caqabad ku noqday wadajirka ummadda iyo wada noolaanshaha ummadda caqabad ku noqday. waa muhiim waana laga maarmaan in la helo qof ummadda iyo dawladda u dhaxayso oo la aamini karo. aniga wasiiraan ahay yaad wasiir u tahay kurdistaan ma wasiir ka tahay wasiir qabiilata qabiila ma tashaa hadaa kurdistaan wasiir ka tahana sheeg qabiila ma tashaa. dawladdu 4.5 ay ku dhisan tahay qof kasta qabiiluhu dawladdu maaragtay wasiir kasta oo dawladdan ka tirsan wuxuu maaragtay uga tirsan yahay hab qabiil uga tirsan yahay. marka haddii aad tiraahdo aniga saaxiibkii way xasan sheekh wax qabiilna wax dana kamid qabiilna kuma iman taa macnaheedu waxa waaye qabiilkaas oo dhan inuusan wasiir leeyahay
horena waa looga bartay xasan sheekh inuusan qabiilka wax wasiira uusan basin tanna taasi la mid annagu muhiim inoo tahay inaan helno dad maaragtay nagu matala siyaasadda haddii alle dowladda hoose iyo haddii alle dowladda dhexe ciise buure oo gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir ah iska daa inuu shaqaale cusub iyo nidaam cusub uu soo kordhiyey xafiiskiisii wiilashii ka shaqaynayay waxaa la sheegay in lacagta laga jaro muddo 8 bilood oo xafiiska hadda joogaa wiilashii dhalinyarada ah ee xafiiska maamulkii maaliyadda ka shaqaynayay mursaday lacagtii waa laga wada gooyey nasiib darro ka weyn ma jirto ma dhicin taariikhda in lacag laga jaro xafiiska maamulkii maaliyadda ee shaqaale ka tirsan oo aan xafiisyada kale laga jarin xafiisyada gobolka banaadir oo shaqaale iska joogo sharci darro ah iyo kuwo sharci intaba cid lacag ka jartana ma jirto maxay tahay sababta looga jaraa dadkan xafiiska maamulkii maaliyadda joogo soo ataag ma ah waa ataag waa ataagna dowladnimada kamid ma ah waa in la is ixtiraamaa waa in darisnimada iyo wadajirka iyo dowladnimada la ilaaliyaa waxayna ku imaan kartaa in la is xaqdhawo sidaas daraadeed waxaan u baahannahay mudane madaxweyne haddii dadkaas ay saaxiibadayeen in ay matalaad dhab ah qabiilka u muujiyaan haddii marka aysan u muujinayna waa inaad qabiilkii maaragtay aadan ku horgoyn oo aad qabiilku waa ballaaran yahay qabiilkii aad talada maaragtay aad dib ugu celisaa waxaa hadda ka hor dhacday nin maalin waran ku dhuftay markaasuu yidhi war waa ladan iga daay ladnaanta nafteedanba kaa dilaayo inaad ladan tahay waayo waxaan waranka kugu dhuftay marka haddii hadda maaragtay dadkan hadda aad noo dooratay oo maaragtay nooga dhigtay wasiirka iyo gudoomiye ku-xigeenka inay sidan noola gooyaan oo sidan anaga ay noo baabi'iyaan adigu aad u dooratay xilka saas ku haystaan waa waddo waay waa naqanaa sida loola macaamilaan naqanaa waqtigeedaan sugaynaa maalinteedaan sugaynaa laakiin haddii aad qabiilkan weyne ballaaran aad ka rabto magac ka rabto oo aad wada noolaasho ka rabto oo aad taariikh beri lagu xasuusto ka rabto oo aad dhaqan ka rabto arrintaa waa inaad faragelisaa oo aad wax ka bedeshaa wax la qaadan kara maan arrintaas waana mahadsanta